Noloshu waa safar aan joogsi lahayn. Ma jiro qof maanta jooga halkii uu shalay joogay. Mana jiro qof beri joogi doona halkii uu maanta joogay. Isbeddelku waa qayb ka mid ah nolosha. Waana waxa qofka ka dhigaya mid koraya, wax baranaya, kana gudbaya caqabadaha horyaala. Mararka qaar qofku wuxuu isku eegaa muraayadda nolosha, wuxuuna arkaa dhibaatooyin, khaladaad iyo fursado lumay. Wuxuu dareemaa in waqtigu ka tegay ama uu ka dambeeyo dadka kale. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in qofka aad maanta tahay uusan ahayn qofka berrito aad noqon karto. Maanta waa bilow, berrise waa natiijada dadaalkaaga. Qof kasta oo guulaystay wuxuu lahaa maalin uu ka bilaabay meel hoose. Wuxuu lahaa cabsi, shaki iyo duruufo adag. Laakiin waxa uu dadka kale kaga duwanaa waxay ahayd inuusan aqbalin inuu halkaas ku ekaado. Wuxuu go'aansaday inuu wax barto, dadaalo, khaladaadkiisana cashar ka dhigto. Haddii aad maanta shaqo la'aan tahay, berri waxaad noqon kartaa qof shaqo abuuraya. Haddii aad maanta aqoon yar leedahay, berri waxaad noqon kartaa khabiir dadka waxbara. Haddii aad maanta niyad jabsan tahay, berri waxaad noqon kartaa qof dadka kala dhiirigeliya. Waxa keliya ee loo baahan yahay waa inaad aaminto awoodda isbeddelkaaga. Dadka badankood waxay jecel yihiin in ay arkaan natiijada si degdeg ah. Waxay rabaan guul aan dadaal lahayn iyo horumar aan waqti badan qaadanayn. Laakiin geedka weyn hal maalin kuma baxo. Dhismo dheerna hal saac laguma dhiso. Guusha dhabtaahi waxay ku timaadaa tillaabooyin yaryar oo si joogto ah loo sameeyay. Waxaa laga yaabaa inaad maanta bilowdo arrinta hal bog oo buug ah. Berri waxaad noqon kartaa qof aqoon badan leh. Waxaa laga yaabaa inaad maanta barato hal eray oo Ingiriisi ah. Berri waxaad noqon kartaa qof si fiican ugu hadla luuqaddaas. Waxaa laga yaabaa inaad maanta kaydsato lacag yar. Berrina waxaad noqon kartaa ganacsade leh maalgelin weyn. Weligaa ha yaraysan tallaabada yar ee aad maanta qaado. Tallaabo kasta oo sax ah waxay kuu dhoweynaysaa qofka aad doonayso inaad noqoto. Dadka guulaysta ma ahayn kuwa mucjisooyin sugay, balse waxay ahaayeen kuwa maalin kasta wax yar sameeya ilaa ay gaadheen meel sare. Waxaa muhiim ah inaad naftaada la hadasho si wanaagsan. Halkii aad ka oran lahayd ma awoodo isbeddel, waan isku dayi doonaa. Halkii aad ka oran lahayd waan fashilmay, isbeddel badan ma samayn karo. Waxaan bartay cashar cusub. Erayada aad naftaada u sheegto waxay saameyn weyn ku yeelanayaan mustaqbalkaaga. Xasuusnow in qofka aad maanta tahay uu yahay sawirka go'aanadii aad horay u qaadatay. Sidoo kale, qofka aad berri noqon doonto wuxuu noqon doonaa sawirka go'aanada aad maanta qaadanayso. Haddii aad rabto mustaqbal wanaagsan, waa inaad maanta bilowdaa dhismihiisa. Noloshu mar walba ma fududa. Waxaa jiri doona maalmo adag, caqabado iyo niyad jab. Laakiin ha u oggolaan inaad dhibaatooyinkaasi kaa joojiyaan riyadaada. Qof kasta oo taariikhda raad ku yeeshay wuxuu soo maray waqtiyo adag. Waxaa lagu xasuustaa ma ahayn dhibaatadii uu la kulmay, balse waxay ahayd sida uu uga gudbay. Maanta waxaad tahay qof leh riyooyin, himilooyin iyo awood qarsoon. Berri waxaad noqon kartaa qof riyooyinkaas xaqiijiyay. Farqiga u dhaxeeya labadaas qof
waa dadaalka, samirka iyo go'aanka adag. Sidaas darteed, ha ku mashquulin halka aad maanta joogto oo keliya. Fiiri halka aad gaadhi karto. Aamin naftaada, baro wax cusub, dadaal badan geli, ha quusan markaad dhacdo. Mar kasta dib u istaag oo sii soco. Qofka aad maanta tahay waa bilowga sheekadaada, laakiin qofka aad berri noqon karto ayaa noqon doona guusha sheekadaas. Bilow maanta si aad berri uga fogaato naftaadii shalay. Wax kasta oo lagu dadaalo, waqti la geliyana waxay ahaanayaan waxa ugu quruxda badan uguna nacfiga wanaagsan.